isku diyaari sida uu dhaqsiyaha badan si walba ay ahaato anigoon ogeyn ayaad qasriga ka baxday shalay xageed aaday hawaan soo qaadanay xageed aaday ayaan ku dhahay meel dheer ma aanan aadin armaanka haya ayaan tegay indhahayga waxaad la fiirin lahadaa been ayaad sheegaysaa sababtaa turkuud u aaday maxay tahay adigoon aniga ii sheegin maxaad damacsanaad inaad samayso walaalkii wax shaqaa kuma lihid waxaaga waa ka badbadis hadda kadib lagama yaabo intuu nikoole kaa guursanaa inaad meesha tillaabo ka qaaddo indhahayga adiga ayay ku saareen waad la socotaa soo maahan isku diyaari biri waa nikoole guurkiisa marow adiga ma fiican tahayna walaalkii wuxuu moodaa wax kasta inuu iga samaysan karo balse wuu qaldan yahay waxaan kaa rabaa hal mid inaad ii samaysa aniga ogow muhiim ayay ii tahay marow wax walba ayaan kuu samayn karaa targooda tag una sheeg waxaan rabaa inuu garab isiiyo nikoola intaan gursan lahaa ay afduubto intaasoo dhan miyaad ku kalsoon tahay wakhtigan la taagan yahan ku kalsoonahay alaabta aan rabno halkan ayay taallaa alaabta qasriga ayuu dhowdahay sooma wax walba oo dhaco lagama yaabo alaabtan gacanteeda inay ka baxdo ustaadkayga warbixintiisii alaabta muhiimka noo ah waa middan waa macdantan haddii aan helno seefaheenna way adkaanayaan haddii aad macdantan ii keento mudane cusmaan waxaan kuu ballanqaadayaa in aan kuu sameeyo fallaaro aanan horay weli loo arkin qasri walboo aad u baahan tahayna waad dhexjeexaysaa cid kaa hor imaan karta haba yaraatee ma jirto macdantan wax walbo ayay noo anfacaysaa xataa ganacsi ahaan waan u iibsan karnaa hay maasha allah ustaadkayga daafud waaba sababta meeshaas aan kuugu diri sooma waxaa rabaa wax walba meeshaas aan ka soo qadan sayfo oo keliya inaad noogu samayso middaas halis fara badan ayaa ka soo horaysa marka hore waa in la gudbaa xuduudda ayna gool baadar garigoor saaxiibkayo allah kuu naxariisto ilaahay uma naxariista kaas rafaad allaha ku dilaan ku dhahay sababta hool yaroo aan u dirsanay ayuu noo qaban waayay dabkaas hadduu kicin lahaa suguud way guban laheed dembiyadiisa ilaahay ma cafiikaas baadar garigoor waa saaxiibkay hool asigoo ku jiro annaga noo dadaalaya ayaa la dilay maaha hadalkan inaad ku hayso waa inaad ka fiirsataa nikoola naga kala yareeya nin dhinta hadalkiisaad inta ku haysaan dan kale idinkama dhacda miyaa labadiin hogaamiyaha isliga ayaa imaaday soo dhowow hogaamiye sargunas laba filaankan muxuu ahaa ilaan annaga kuma sugaynin halkan aniga booqasho umaan imaanin ee inaan idiin diga ayaan u imaaday maxaad ka hadlaysaane maxaad ka hadlaysaa maad ileedahay war yaa awood kuu siiyey cismaan oo aniga waddadeeda ku soo socda inaad weerarto cusmaan waa annaga cadowgeenna maalaayacniga iga jooji koses qasrigayga asiga ku sugan ayaa sun la siiyey asigoo waddada soo maraya cidda weerartay ayaa suntaas siisay
falkaasna adinka ayaa ka dambeeya cusmaan cidda waddadaada u gashay waa aniga haddii aan fursad kale ku helanna ma dhaafayo laakiin annaga waxaa naga daran ninkaas ciddi ganacsi la samaysatay cid kale maaha waa adiga anigii iyo saaxiibkeenna waan baabi'inaynaa مسلسلكani wuxuu gaar u yahay muqdisho cable tv turkidaas laguma kalsoonaada sababtoo ah annaga aqoon buuxda ayaan u leennahay hayse guuras adigana mise cusmaan suntiisaa ku gaatay ii sheeg bal wax walba indhahaagaan uga jeedaa saaxiibtinimo ayaad ula oroday geesi inuu yahayna adigaaba hadda noo caddaynaya hadalkaaga wuu bata nikola awooddaada yaysan noqonin meeshaan inaad ka bootayso oo keliya wax qabad ayaa loo baahanya saguras boqolaal hubaysan hadday hortayda ka soo baxaan sida kaneecadiioo kale way igala fudud yihiin aniga hadal ma wado maalmihii aan hadlayna waa laga soo tagay wax qabadaan hadda ku jiraa adigay ku taagan ilaan adiga annaga nooma jeedid waxaad rabtaa cusmaan inaad isbahaysi la samaysato annagana aadna qayaanto hoggaamiyaal aniga magacayga waa sakuros waxaan ahay hoggaamiyaha nakeya haddana waxaan rabaa qabiilka kaaya inaan aniga booqasho ugu tago aniga iyo badeecadeyda waxaa amnigooda sugaya mudana cismaan iyo ciidamadiisa go'aankaas ha idiin fududaado ama ha idinku adkaado waa inaad aqbashaan hadalkayga ugu dambeeyey waa idiin sheegay xilkan laguu dhiibay ayaa kaa waalaya waxaan ka cabsanayaa jaranjarada inaad ka dhacdo taxadirkaaga ha badnaado wejigaagana doori hoggaamiye maxaad ku fikiraysaa xuduudda enogol sideen ku dhaafaynaa wax walbo xal ayaanu helaynaa waxaan casuum hoggaamiyaha isniig waa uu noo soo socdaa badeecadaasaan rabaa inagool inaan ku galo seefeenan markaas ayay shaqaynayaan qaasriga inagool ugu horeyn go'doon waa in aan ku samayno markaas ayaan hadafkayga gaaraya waqtigeeda markii la gaaro waxaa la ogaanaya wax walboo aniga aan damacsan iskuurasan dhankiina hadduu noqdo kooxdaas waa ay u dhammaatay